بدونaysaa in arsaaqada lagu waasiciyo nolosha fakhriga ee murugtana aad ka baxdeed haddaba shanta sababood ee cibaadooyinka rabbi loogu dhowaanayo ah waa kuwa loogu rajo weyn yahay rabbi subxaanahu wa tacaala oo arsaaqada ku waasiciyo qodobka ugu horeeya waa salaada rabbi subxaanahu wa tacaala suuratu taaha isagoo suubanaha naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee la hadlaya waxa uu yidhi wa amur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narsuquk ehelkaaga amar salaada oo ku sabir risiq ku weydiin meynay annaga ayaa ku arsaaqaynaa qodobka labaad waa la kacabsiga rabbi subxaanahu wa tacaala suuratu dalaaq waxa uu leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib qofkii ilaahay ka cabsado ilaahay ka dhowrsada makhrajuu dhibaato kasta kaga baxsado ayaa loo samaynayaa waxaana laga arsaaqayaa meel aanu ka filayn qodobka saddexaad waa sadaqada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay maa naqasa sadaqatun min maal sadaqadu maalka waxba kama nuqsaamiso bal iska daaye waaba ay laba jibaartaa oo way siyaadisaa qodobka afraad ee arsaaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waasiciyo waa istighfaarta rabbi subxaanahu wa tacaala suuratu nuux waxa uu ku leeyahay faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara aayaduna macnaheedu yahay ku dheh nebi maxamed oo dadka rabbi u istighfaarsada isagu waa dembi dhaafe markaa ka gadaalla roob ayuu idin siinayaa sidoo kale wuxuu idinku arsaaqayaa awlaad iyo waxa weeyaan beero iyo waxyaalo kala duwan qodobka ugu dambeeya waa qaraabo xiriirinta ama riximka oo la xidhiidhiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qofkii doonaya in arsaaqada loo ballaadhiyo shayga raadaynaya murugta ku hayana la ilowsiiyo qaraabadiisa ha xidhiidhiya haddaba qodobada haddaad ku dadaashid asbaabta aad la timaadid oo shaqo tagtid oo aadan iska seexan subaxiina aad ka lahdid waxaa lagu rajo weyn yahay inaydin fakhriis arkin aad baa u mahadsan tahay nebiga ku salliya sallallahu alayhi wasallam muuqaalka nasiif faafiya si walaalo fara badan ay ajarka inoola qaybsadaan bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska alhidaaya islamic center uu diiwaan gelin doono arday cusub markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta islaamka sida higaada qur'aanka oo hab tajwiida loo barayo caqiidada barashada farteena soomaaliga iyo dhaqanka iyo in weliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa haddaba haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550 aad baa u mahadsan tahay